taliyuhu uu ka shaqeeyo sidii isboortiga Soomaaliyeed ama Olombikada Soomaaliyeed dadku ay isu dhexgeli lahaayeen waxaadna ogtihiin inay iskaabayaan shaqada nabadgelyada booliiska iyo bulshada oo ay yihiin laba aan kala maarmin oo ah in la isku wado maxaa yeelay booliisku wuxuu qayb ka yahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka danyarta ah ayuu booliisku gacan siiya u kaalmeeya sidaas darteeda waxaa muhiim ah si la isku keeno markaasi dhab u noqoto in bulshada si macaamila oo Olombikada ciyaaraha fudud ama kuwa culus inta laga noqoto la isku keeno waxay qayb ka tahay sugidda nabadgelyada sidaas darteeda aad iyo aad aan u faraxsanahay waxaan soo dhaweynaynaa kuna faraxsanahay sida Olombikada Soomaaliyeed ay korayso ama isboortiga Soomaaliyeed uu korayo aad iyo aad aan u faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa sida caadada noo ah haddana imaamka gobolka gacan ayaan ka geysanaynaa aad ayaan maaragtay waa bulshada ku nool gobolka Banaadir anigoo weliba hadda aad ogtihiin inay dhamaatay dowlmey oo ah 16 degmo ee gobolka Banaadir inay mudabila ay hawshaasi socotay lana soo gabagabeeyo waqtigeeda annaga haddana maamulka gobolka waxaan soo dhaweynaynaa maanta jaa'izada la bixinayo waa soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay qayb ayaan ka geysanaynaa bulshada Soomaaliyeed waxaan dhihi lahay qoliyaha isboortiga ama hay'aday doonaan ama magaca doonaha loo baxshay waxaa dhalay Banaadir marka ciyaartooydana naga dhalay waxayna ka soo jeedaan gobolka Banaadir marka aad iyo aad aan u faraxsanahay gabdhaha lamadeen amba wiilal lamadeen in ay guulo soo hooyaan shacbiga Soomaaliyeed ay sharaf u tahay iyo qaranka Soomaaliyeed annagana aad iyo aad u faraxsanahay marka madaxda waxaan rajaynayaa in ay jiraan dadka duuf lagama keenin beecna laguma keenin dadka dhalinyarada ah ee guulaha soo hooyay gobolka Banaadir inaan intaas isaga soo koobo waana soo dhaweynaynaa qaybna waa ka qaadanaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh.